wafdigii uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ayaa waxay kormeer ku tageen cusbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo isagoo sidoo kalena ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayay agab caafimaad iyo daawooyin iyo waliba haamaha oksijiintu ku kaydsan yihiin cusbitaalkaasi loo keenay waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo Saciid Axmed Xasan iyo isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Naasir Cabdiraxmaan Maxamed qalabkaasi ilaa iyo 4 container saddex hore iyo mid dambe ayaa inoo yimi way inoo wada yaalaan hawshooda furitaankooda iyo maamulkooda waxaa insha Allah nagala hadli doona waftiga maanta waxaan ku sugannahay cusbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo waxaa halkan nagula sugan wafti uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Mudane Cumar xafladani waxay tahay midaynu marka hore leenahay ilaaba mahad leh والله شكرتم لا سيدنكم waxaan taa u leeyahay 2014 hal tiyaatar baa wasiirka halkan ka samaysnaa qololka ama waararka meeshuna waxay ahaayeen laba waa isbitaal Ingiriiska dhisay maantana mashruuca horumarinta Soomaaliland oo aynu joogno 2020 qololka wax lagu qalaa waa 3 waararka ka samaysanna waxa laga yaabaa intii hore laba jibaar bay ku yihiin qalabka yaala waa advance waa kuwii ugu dambeeyay taasina waxay ka dhigan tahay gobolka Sanaag min baran ilaa dhahar ilaa Garaadag haddaana gobolka kale aan noo imanahayn alaabta maanta halkan noo taala ee soo gaadhay oo wasiirku hadii alla ka dhigo insha Allah bidmilaahi kariim nagu wareejin doono si rasmi official ah ayay tahay gundhigeedana iskugu nimi waxaan ballan qaadaynaa alaabtaas iyo qalabka tayada leh ee casriga ah in ummadda loogu adeego hadafkii looga jeedayna inay insha Allah laga gaaro waxa isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay madaxa mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF Faisal Baraade oo ka warramay mashaariicda iyo daawooyinka ay keenaan cusbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo eeriyooyinkii mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland waxa aan kaliya aan ka taabanayaa in ay intii ugu dambeysay oo ah qalabkii cusbitaalka uu meesha marayo maanta containerka 40 fiidka aynu rognay waxa uu ka mid yahay qalabkii cusbitaalka Ceerigaabo loogu talagalay hal diyaarad baa hadhay oo qalab aan maraakiibtu soo qaadi karin oo burburaya lagu soo qaadayo taasaana u dambaysa wixii kale 4 sanadood 5 sanadood wadada dheer aanu soo haynay ma sha Allah alxamdulillah baynu taaganahay I believe inay marxaati ka yihiin reer Ceerigaabo waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ee madax dhaqameed oo isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag ku amaanay doorka uu ka qaato horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag horta wasiir anu waxaan ahay salaadiinta degmada Ceerigaabo ee waliba qurba joog mihi dadka qurba ka yimaada mihi muddo dheer waxa weeye maanta maalinu ay halkan ka sito caafimaadku ma jirto waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay wasiirkii caafimaadka oo inala jooga iyadoo xanuunna badani jiraan mudane wasiir waxaanu kugu bishaaraynaynaa oo aadna aad ogtay aanu kugu bishaaraynaynaa caafimaadka gobolka Sanaag waa dhameeyay waa gaari meel walba nooc kastaba ha ahaadee aan marxaati ka nahay in aad iyo aad wax qabad badan aad u qabatay dhinaca caafimaadka waxa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur Barasaabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cusmaan Xasan wasiirka hoggaanka jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland Sahal Maxamed Jaamaca iyo la taliyaha madaxweynaha Cabdiwaahid Cabdiraxmaan saa lagu sheegay wasiir waa ifaysaa baadi caafimaadka insha Allah waxaan ilaahay ka baryaynaa inay sii socoto oo ay gaadho ilaa iyo heerka ugu sareeya alaabtan aad noo keentayna waa ku mahadnaqaynaa dadaalka wasaaradana mar hore iyo mar dambeba waa ku mahadnaqaynaa mar saddexaad iyo mar labaadba waxaanu ku mahadnaqaynaa ninka halka taagnaa baraare la yidhaahdo oo runtii aanu oran jiray war waxba keeni maaye ninku socod badana maalba wuu yimaadaaye oo iminka gebageba arrintii ay ku jirto laleeyahay bakhaaradiina waa buuxaan oo alaab badan baa la keenay aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii maalin kaliya ka soo horeeyay maantana waxa farxad ah inaan la kulmo isbitaalkii weynaa ee Ceerigaabo oo intaas oo qalab yaalaan nasiib wanaag way aadna waan ugu faraxsanahay runtii waxay gelinaysaa didiilo iyo in isbitaalkii aad maxaan ku raadayay dad shaqaale fiican iyo horumar fiican yaalo degmooyinka gobolkan Sanaag kuwa hore iyo kuwa kale ba ahaadeen isduuhan uu gaaray min baran dhahar waxaan aniguna soo xarig jaray bishii hore 3 MCH
oo degmada Dhahara intii muddada 3 sano ku dhow ee madaxweynuhu xilka hayay waxaa halkan laga markhaati furay oo isuduwaha iyo agaasimaha iyo intii hadasho ay ka markhaati fureen sanadihii u dambeeyay isbitaalka in isbedel weyn uu ku dhacay. wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay mashaariicda xukuumaddiisu ka hirgelinayso isbitaalka magaalada Ceerigaabo iyo guud ahaan caafimaadka gobolka Sanaag. waxaan u soconay kormeer iyo indhayn iyana ku hurgalo xaaladda caafimaadka dalka oo ogtihiin inaynu qofkii ugu horreeyay xanuunka laga shakiyay waxa January dhamaadkeedii waxa loo diray South Africa diyaarad baa qaaday haddana waxa ku soo xigay in la geeyo Nairobi imigana waxaynu ku baadhnaa Hargeysa ku baadhnaa oo Berbera lagu baadhaa oo Burcaan lagu baadhaa oo way soo socotaay halkana waxaan ka ballan qaadayaa mashiinkii lagu baadhay inaan keenino waana ballan qaad waxaanu ogaano kale oo ogtiin walaalayaal qofka xanuunkan soo dhaca baahi badan buu qabeen oxygen-ta wax weyn ma aha dalka waxaanu keenay 400 oo haamood oo 300 oo kamid ah xukuumaddu soo iibisay boqolla aanu aad ugu mahadnaqayno dad qurba joogteena dhakhaatiirta joogta dalka Mareykanka iyo hay'adda Amud Foundation qayb kamid ah inay iyaguna ay soo iibiyeen 100 haamood haamihii baanu qaybinay dalka dhammaan gaarsiinay hadda waxaan wadnaa 50 haamood oo buuxa oo ay ku jirto oxygen-tii 55 haamood way halkaas su'aal baa inta inta waxa la yiri markay faaruq noqdaan Hargeysa la geynayaa maxaa la yeelayaa halkan waxa ka ballan qaadaya oo dhagax dhigaya warshadii dhalinayso oxygen-ta inaan keenino sidaasaanu gobol walba looga qabtiraya baahida halkan maanta waxaanu wareejinaynaa waa qalabkii oo ah mashiinadii muhiimkii waa x-rayadii CT scanadii sida hore loo sheegay waxa la sugayaa khubradda rakibi lahayd iyo tababarkii shaqaalaha la siin lahaa. ugu dambeyntiina waxa wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland halkaasi ku soo bandhigay qalabka sida degdega loogu baadho COVID-19 rapid test devices ahamaha kaydka oxygen-ta sidoo kalena waxa uu dhagax dhigay xarunta mashiinka dhalin doona oxygen-ta oo laga hirgelinayo isbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo. Yunis Sheekh Axmed, Ceerigaabo.